بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. داس كدب waxaa sharaf weyn ii ah maanta in aan barnaamijkan oo aan ugu talagalnay soo dhaweyn maamuusid iyo qadarinta uu qof qarameed ugu fadhiyo bulsho aan ka soo qayb galo qaybna aan ka xiriiriyo aan idinkugu bilaabo marka hore anu magacayga Cabdifataax Saciid baana Caymuun waxaana barnaamijkan uga imid magaalada Örebro ee ku taala bartamaha Sweden si aan dhalinyaradan ahlu isboortiga ah ay u soo dhaweynayaan iyo rag kale oo qiimo weyn iyo magac dheer ku leh isboortiga Soomaaliya ay uga qayb qaadanayaan soo dhaweynta walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Ibraahim oo loo yaqaan Gaduudow waan ognahay difaaca qaranka Soomaaliya ahaa kooxda qaranka wuxuu kaloo Gaduudow soo maray oo ahaa kabtankii kooxda qarankana wuxuu leeyahay astaanta qaran waa naqaanaa dhammaanteen run ahaantii astaanta ugu horeyso ee la yaqaano ay ummadi leedahay waa kow calanka markii la arko ummadaasa iska leh marka calanka buluuga ee xidigta cad dhexda uga astaysan geesoodka marka aad aragtid waxa kow ku sawirmaayo jamhuuriyadda Soomaaliya labo nasabka dadka Soomaalida ah ayaa ku sawirmaayo saddex afkiya ku sawirmaayo afar dhaqankiya ku sawirmaayo wax kale marka intaas oo dhan isku qaatay oo shaarkaas huwan oo mujtamaca iyo caalamka la taga jiro oo ah qofka qarameed tusaale ahaan qofka markuu darajo heer sare uu ka qabto xil qaran madaxweyne ha noqdo safiir ha noqdo wuxuu matala uu markaas hormuud u yahay uu xambaarsan yahay astaanta wadankaas oo dhan waxa kale oo jiro fanaanka marka uu caan baxo uu ka gudbo xayndaabka wadankiisa qarankiisa uu ka baxo caalamka kale u gudbo wuxuu noqonaa yaani tilmaan ama astaan qarameed waxa ku soo xiga marka oo si yaani macquul oo caalamka oo dhan laga ictiraafsan yahay waa qofka sportska qofka sportiga wuxuu garoon ku soo galaa funaanadii qaranka surwaalkii qaranka astaantii qaranka heestii qaranka magacii qaranka marka uu guuleysto soo safashada kaliya ay soo safato koox ama orodyahan ama ha ahaado ciyaaraha kale fudud qof ka qayb qaato ama kubadda cagta garoonka markuu qofka soo galo wuxuu huwan yahay qarankiisa oo dhan magacooda imaatinku meesha keenay wuxuu meesha keenay qofka magaca wadanka dadka iyo dhaqanka iyo afku keenay wuxuu abuuraa marka in la xiiseeyo wadankii in dadkii ay bilaabaan inay wax ka ogaadaan marka qof walba oo sidaas oo kala ah heerkaas soo gaaray wuxuu ummadda iyo qaranka si gaar ah uu meel uga yeeshaa oo meel gaar ah uga taabtaa waxa kamid ah in qofkaasi uu yahay qof qarankii shaarkii يعني جعيلك قفك وحب الوطن ومن الإيمان اللي يراهدا قيب كمدا مركا جعيلك ودن كاغا دو قبتي او waxa u qaadaysa xitaa qofkii markaas magacii qaranka kor u qaaday marka walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Gaduudow wuxuu kamid yahay raggii ilaahay fursadaasi subhanahu wa ta'ala oo siiyay helay in ay jacaylka ay u qabaan wadankooda ayagoo wadankooda matalaya ay mustawi ilaa heer qaran ay matalaan ciyaaro badan oo dibadda uga qayb galay isboortiga waa laga fiican yahay marka ragga isboortiga ka faaloon doono marka waxa anna iyo dhammaan aan ku hadlayo magaca inta maanta ka soo qayb gashay dhalinyarada iyo inta kale insha Allah na soo gaari weysay ee qalbiga nagala jiro in aan si kal iyo laaba niyad samaan Soomaalinimo iyo Islaamnimo ah ku soo dhaweeyo Gaduudow aad iyo aadan insha Allah ku soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay waxay noo tahay sharaf gaar ah in aan maanta la fariisto markii laga reebo rag kooxaha gudaha u soo ciyaaray qof heer qaran oo mustawigan gaaray oo aan nasiib u yeesho oo aan saan ula soo fariisto ilaa darajada kabtankana soo qaatay wali ciyaartooyda dhexe waa qaadan kubadda kuwa topka ciyaar waa geeyaan waa qurxiyaan waa dhaliyaan laakiin inay wax dhalan waayaan ninka hor istaago oo difaaco ee naftiisa hor dhigo ee awoodiisa xoogiisa xirfadiisa hor dhigo ma naga qarsantahay inuu yahay difaaca
difaaca la'aantiisana ninka top ka ciyaaraya goolka ku ridaya dhali la leeyahay lagama yaabo inuu nabad ku dhaliyo hadduu difaaciisa iyo goolhayaha isku hubin marka waa labada lafdhabar weyn ay ka yihiin qaybtaas marka maamuus gaar uu mudan yahay ka difaac ahaan iyo ka kabtan ahaan kabtanna koox looma noqdo ama hoggaan koox looma noqdo gudaha ilaa qofkaas inuu kasbaday hoggaan uu leeyahay dhaqan hogaamintana maaha in dadka la maquuniyo waa wada ognahay waa in akhlaaq iyo nidaam iyo weli xitaa dhaqan iyo karti marka intaasuu kasbaday anna sharaf weyn ay tahay waa markii ugu horeysay walaalkeen inaan soo dhaweyno si sharaf leh aan u soo dhaweyno insha Allah ilaahayna ha waafajiyo marka barnaamijka hadaan hore u galno waxa kale oo nala joogan rag badan oo iyagana yaani magac iyo miisaan ku leh isboortiga ka soo ciyaaray laakiin intaan hore u gudagelin barnaamijka waxa na soo gaartay in uu geeriyooday walaal qaali ah isagana xubin firfircoon ka ah isboortiga magac iyo miisaan ku lahaa marka aan daqiiqad siino oo aan u akhrino ikhlaas qul huwallahu ilaahay inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo walaalkeen shaarkay oo geeriyooday maanta ilaahay naxariistii jannaha siiyo ikhlaas aan insha Allah u akhrino bismillaahir rahmaanir rahiim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي قبرgiisa waasac Allah uga dhigo dhamaan umada Soomaaliyeed sharaftii karaamadii iyo magacii uu ku dhexlahaa ilaahay insha Allah samri iyo iimaan ka wada siiyo ehelkiisa qaraabadiisana Allah samri iyo iimaan ka siiyo intaas kadib waxaan ku soo dhaweynayaa microphone-ka qof magac iyo miisaan iyo sumcad ku leh halyay soo saftay garoomo badan ciyaaro badan ka soo qayb qaatay waa Maxamed Faarax waa isweydiinaysiin waan ogahay ama waa la isweydiinaa waa macalinka macallimiintu waa badan yihiin waa macallinkii qodxaalay Maxamed Faarax insha Allah macalinka ku soo dhawaaw munaasabadan gaarka ah ee aan ugu talagalnay soo dhaweyn iyo maamuusid walaalkeen difaaci kabtankii qaranka Soomaaliya gaduudow ku soo dhawow walaalkeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي. ماشان واحد سجوني مذا أمرنا إسبورت تدك إسبورتك أما هرؤوس عياري أما يعني يرتوي هذا ومعلمين هالنقطان قدال ضم إيوه ضد إسبورتك نفت الكود كحر إسبورتك معها كان عياري كلي نينك فرصة نينك يعني صحافة ضي وحكا قرا نينك هبي أهان وجعل كل نينك مال قلية كل وإسبورتي وكم ما سنتين أرتا وحنا كسر دويننا مانتا ولكن جدودو كل يعني وحوا هذيك ما عندنا إسل ديلنا لكن هو إسل ديلني كواحد يقود حالي يوم مرة ديلي أنا كوب سد حدي محل ده أكتوبر أنا كود ديلنا عيديد جنال عيديد كود انتهي الله قبت كوب أيوة أنا كقود حالي كواحد أنا كابتن وهو أنا عياري أنا كواحد كلك السوق هذا وكو هذه هذا دوم ما سنتين walaalkeen inaan ku soo dhaweyn meeshan walaal ku soo dhawaaw meeshan Sweden la yiraahdaa aniga naftirkeyga Poland aan ka imid waa kula mid baan ahaa laakiin ka soo dhaweynta adigu soo dhaweeya ana dhinacayga ay iga soo jiiday aan halkaan u mid waad ku maasantii sida walaaltinimada ah iyo xushmada leh isboortigu sidiisa ma aha qabiil isboortigu waa fan ninka waqooyi ka yimaado kan koonfur ka yimaado kan gobolada dhexe ka yimaado isboorti mar hadduu noqdo waa isboorti xogaa caadifad xumaa wadankii naga gashay ilaahay asigana noo fududeeyo gaduudo walaal ku soo dhawaaw meeshan asxaabtaadii baa kaaga soo horeysay meeshan ciidiid baa kaaga soo horeeyay dad badan kaaga soo horeeyay meesha soo dhawaaw faliya tafadal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka walaalkeen jinax islow ku soo dhawow adigoo mahadsan munaasabadan aan walaalkeen gaduudow ku maamuusayno kuna soo dhaweyneyno inuu noogu yimid wadankan Sweden maantana uu ka mid noqon doono Soomaalida nala degan Sweden ee ah Somali Swedish marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan magaalada Sweden ku soo dhaweyneynaa laacibkii weynaa Elman iyo qaranka u saftay Abdulqaadir Umar Gaduudow waxaan ku soo dhaweynaa si gacmo furnay Sweden ku soo dhaweynaa si wanaagsan oo hadda wixii ka dambeeya kamid ah dadka degan Sweden marka sportigo dhan magaciisa aan weysiinayna inuu Gaduudow
kusoo biiray dadka ku nool magaaladan maarata magaciisa Sweden saas daraadeed saasaan ku soo dhaweynaynaa oo maasantiin waxaan ku soo dhaweynaa microphone-ka walaalkay Caydiid isna insha Allah inuu ku soo dhawaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo xaflad lagu soo dhaweynayo saaxiibkay qaaliga guduudo maadaama aan iska soo ciyaarnay banooniga muddo dheer. runtii guduudo waa nin macquul ah, waa nin oo legend ah oo u soo ciyaaray qaranka muddo badan. Aniga inkastoo igaga dambeeyay qaranka aniga 2002 ayaa Soomaaliya ka soo tagay asiga ilaa hadda ilaa iyo 2007 uu joogay. runtii guduudo aniga Baronis aniga waxaa jiray goolhaye iyo xilligaas guduudo aniga guduudo qaranka isku marayaan bilawnay qaranka kooxda oo ciyaartooyda qaranka oo Serie A oo qawaawinka ayaa qarankii ugu horeeyay waxaan baxnay 2009 Rwanda. runtii aniga guduudo sidaas u baxnay ilaa halaas waa wada bixi jiray qaranka aniga asiga. runtii walaalkii guduudo waxaan dhihi lahaa ku soo dhawow Stockholm Sweden. dhammaan dhalinyarada ciyaartooyda oo joogta maxaa la sheegay Sweden aad ay maasanyiin maadaama ay meeshaan ay ku soo dhaweynayaan guduudo. Cabdi Islow ku soo dhawow microphone-ka adigan insha Allah munaasabadan gaarka ah in ugu talagalnay walaalkeen guduudo. ما شاء الله dhammaan dhalinyarada ciyaartooyda hore waan wada salaamayaa maanta waxaan farxadii ah inaan joogo wadanka Sweden anigoo degan dalka Holland soo dhameyntii ciyaaryahankeena qaaliga nagu ah xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii Elman iyo kooxdii Shamo Plus ciyaaryahan guduudo ilaa iyo heer bacaad ilaa heer walba isaldin laakiin heer garoon ama heer sir ama heer qaran isla ma dheelin intaas idan sibdar ku noqday haddana ciyaaryahan guduudo uma noqonin macallimo kuma soo gaarin sorry ciyaartooy go'aaminaad sida Caydiid oo kale macallin u soo noqday laakiin insha Allah asna in badan inta ciyaaraad ka fadhiisto waa sugeena marka welcome to Sweden leena ciyaaryahan guduudo waana ka dhiijinayna ciyaaryahan sportiga iyo wax walba noo helino soo dhameyntan iyo hawshan oo Sweden lagu soo dhawo guduudo waxa uu imaaday wadanka Holland anigoo aan qadarinayo qiimaha iyo qaaya oo kamtan ciyaaryahan guduudo noogu fadhiyo dartiisa ayaa wadanka Holland noogu imaaday waxaa la guduudo welcome to Sweden insha Allah waxaana kamid ah nala joogo Cabdiqaadir Miskiinow Daadir iyo Yaasir waxaa microphone ku soo dhaweynaa Yaasir oo ku hadlaya hadda magaca dhalinyarada kuna hadlaya magaca ciyaartooydii iyagana qaranka u soo saftay hadda inta nala joogo Yaasir Maxamed ku soo dhawo walaalka microphone-ka. السلام عليكم ومahadsantiin inaad ka soo qayb gashaan xafladii aan ku soo dhaweynay kabtanka xulka qaranka laakiin maanta dhan waxa ka tagaysin ciyaartooydii maaragtay goolgahayii weynaa ee xulka qaranka Caydiid ku soo dhawo adigana martiyaa noo tahay kabtanka kaligiis marti ma noo adigana ku soo dhaweynayna marka meeshaan waxa dad badan maanta ani waxa ku faraxsanahay macalinkeygii guduudo waxa waay macalinkeygii uu ahaa waan isla dheelnay marka waxaan ku faraxsanahay ina isyaraada arkabo maanta ina nin yar noqda arkabo marka waa maasantiin soo dhawaada ciyaartooy badan oo qaran ay joogto Daadir ay joogo Miskiin waa joogo ciyaartooy badan oo wadankan ka soo dhisha joogo Artan oo kale wadankan 17 jirada wuxuu ahaayay oo Sweden oo kamid noqday nasiib daro dhaawac uga baxay marka soo dhawaada waa maasantiin gabagabada iyo gunaanudka waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamij ku soo xireynaa kelmad qiimo badan oo aan sugaynay oo walaalkeen Cabdiqaadir Gaduudow uu noo jeediyo Cabdiqaadiradana ku badneed aan u maleynaa kooxda marka Gaduudow ku soo dhawaaw aad iyo aad insha Allah ku soo dhaweyneena waana ku faraxsanahay inaad Sweden nala joogtid maanta. waa mahadsantii inta oo maanta meeshaan inta ka maqan oo igu soo dhaweysay wadankan Sweden waa imaajer Sweden marmar waa soo gaar jira laakiin markaan wax badan aan joogaa oo meeshaan rag badan oo saaxiibaday ay igu soo dhaweeyeen oo aan isleen ciyaartooy
laakiin waxaa iga sii weynayd inta kale oo asxaabta ahayd laakiin midda aan la yaabo waxay ahayd marka meeshan aan imid rag badan oo dhahay anagoo dugsi soo gooy aan ku fiirsan jiray marka dadka dhan meesha waa yaraaday aniga odayga eega dhiga qof dhahay macnaa cadow ku soo fiir jir marka dadka dhan daad meeshan waa wada qarsanayo ma fahantay waa gartay marka in aad iyo aad ay u mahadsantihiin sida oo qadarinta leh ama ii sharafteen ay ugu soo dhaweyseen in anigana waa inii gudoomiye rag badan ciyaartooy aan isla soo safanay meeshan way joogaan waxaan aad ugu faraxsanahay rag badan aan qaranka isla soo safanay aan laakiin muddo 10 sano iyo ka badan aan wadanka aan dhowr sano ka hor ugu dambeyseen aan nasiib u soo oo wadankeen dhibaatada ka dhacda oo soo wada baxnay oo maanta anagoo joogno wadanka banaankiisa isku aragn haddana waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin ma garatay sidaa darteedna waxaana maanta noo suurtagashay ama qadada noo suurtageliyay asxaabta reer Sweden oo ah dadkii ahaay ciyaartooyda dadkii ah taageerayaasha dadkii yar ahaa markaas ayaga aan markaas jaaniska u helin ama inaan garoon isla galno oo macnaa isha markaas ayaga soo baxayeen mar sidaa dad ciyaartooy saa ogtiin ma warbadna anaga waxa way garoon kale ka shaqeynaa laakiin mikrofon iyo hadii la keena hadal badan maash inaan ka jeediyo ma jecli waqtigan waana haya rag badan ayaa waxa maanta iskala ciyaar inay dheelaan in maanta aan isku nimaano waxa waaye waxa laga garoonkan hadii inaan ciyaarka si aadna laga yaabaa waxaan hadda socda ciyaarihii samarka aan u imid inaan meeshan maanta aan ka daawado fiirsado saadarteedna raggan saaxiibadaya waxay iga codsadeen maanta inay ii sameeyaan qada sharaf oo ay ma igu soo dhaweeyeen wadanka Sweden in ragga aan macnaa ciyaartooyda aan isla soo ciyaarnay ama aan waa ogtiin wadanka marxaladda markaan soo dheelayno kuma soo aadan wadan oo dawlad leh oo nidaam leh oo macnaa ii sheeg adiga ciyaar sir qofku uu dheel karo waxa anaga marka ciyaarayno wadanka dhibaato badan marka training aan aadeyno marka game-ka aadeyno marka safarada aan soo baxnay waxyaalo badan aan kala kulmi jirna laakiin sida waxa dareemi kara rag ciyaartooyda oo soo saftay ilaa hadda waxa meeshan fadhido oo macnaa ii sheeg ciidiid oo ah goolahayeen oo asxaabta wadanka Holland ku nool laakiin ciyaaran samarka u imaaday Yaasir oo isagana inta wadankan Sweden joogo دادر عبد القادر المحمود وعسين انت جوجو او دادر midnimo oo yaqaanin عبد القادر gurey oo macna asagana dekada oo ciyaar jiray ragan oo hadda macna saan isku jecelnaa laakiin markii kooxaha aan isla ciyaar jirin waxaan isku ahayn ragan caadi ahayn fahantin waxayna ka mid ahay dadka hadda saaxiibada saas isoo dhamaan aad ii jecel waxaan dad miskiin oo loo yaqaan ana wax kale ma u kasay فيصل علي محمود فيصل علي مهد لو يقان الدادر marka aad ma hasantihiin in waxaan kale maanta fursadan ugu faa'iideysana inaan ugu tacsiyeeno aan hadda maqalna meeshan lagu sheeg fadhigan ciyaaryahan Sharkey oo macna aad aan u garanay oo wiilkiisna aan isla ahayn aan ciyaartooy isla ahayn Maxamed Nuur Sharkey aad aan kaaga tacsiyeena geeridu ku timid aabahaaga كلنا إن ودنك جوتي إن هذا كم قنت مع قن هذه المن هذا حجري إيشك هذه قرطون مركنا ودن كنا قدين إنه كم قانو مرك هذا سنتين ريال ستوتكم إن هذا أنا وفرح سنة إن قدنا إسلق هذا ركبنا ويجران جعلان لها إن كسوة خيب جلان وأن هذا فرصة لسهل ووقت وأكتين ووقت الشخو ووقت تايم بدل ملسكهلين سأنا مرك هذا سنتين واني وذا سلامة